أظن تبرهين تلنا عنهين وطلع قبي كل كتويوي لمن ترغي عليه وتفاقلا وعن كوتورين كوت حاتان إلا قلت هاقو تشوينا والله قوتني كويو تشوينا والله قوتني كويو kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qaybta toddobaad ee barnaamijka yaa fikiray federaalka Soomaaliya oo ah taxane ku saabsan soo ifbixi federaalka Soomaaliya. qaybtii lixaad ee barnaamijkan waxa aad ku dhageysateen faahfaahin iyo faaqidaad ku saabsan tusaalihii reer galbeedku ay soo qaateen federaalka Soomaaliya ee ay ku soo bandhigeen warbixintii ay diyaariyeen qubaradii iskuulka culumta iyo siyaasadda ee magaalada London sida ay aaminsan yihiin ummad badan oo Soomaaliyeed. Soomaalidu ma ahan dad loogu talagalay nidaamka federaalka oo durba la soo baxay ceebo badan oo dadka Soomaaliyeed ay ka daaleen, gaar ahaan dadkii u soo joogay xilligii dalku u lahaa dawlad dhexe oo iyagu dhaliil weyn u soo jeedinaya nidaamka federaalka. dadkii u soo joogay dawladihii dhexe ee dalka soo maray kaliya ma ahan dadka dhaliilsan nidaamka federaalka, balse sidoo kale dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, ganacsatada, daayarta kale ee aan la soo kulmin dawlad dhexe oo shaqeynaysa ayaa ka mid ah dadka dhaliila federaalka. Professor Ciise Maxamed Siyaad waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada Soomaalida isla markaana u soo joogay inta badan dawladihii dalka soo maray. waxa uu dhaliilsan yahay nidaamka federaalka, waxa uu sheegayaa in federaalku uu danqanayo boogihii qabaa'ilka ee loo baahnaa in la dhayo. federaalka markii laga hadlayo annaga horta waxaan soo marnay wax la yiraahdo dawlad ciidan oo kacaan ah oo la yiraahdo dawladda maxaan ku yiraahdaa hanti wadaagga Soomaaliyeed. hanti wadaag waxa dhacday inaan u fasiranay nin walba sidoo rabo u fasirtay. habarta ariga la jirta waa fasiraa, oday geeli la jira waa fasirayaa, ninka ciidanka ah waa fasirayaa, dadkii ku takhasusay waa fasirayaan, qof walba sida ula ekoonaata ayuu u qaatay. hadda federaal nololo yimid federaalkii isla wadadii uu maray, cid waliba ama qof waliba ama koox waliba ama degaan kasta sidii asaga ay ula ekoonaatay iyo sidii u jeclaaday ayuu u fasirtay oo ugu muuqdaa. federaal la fasiro oo saldhig iyo nidaam iyo system uu leeyahay ay cad yihiin anagu ilaa hadda ma hayno. waxaan haynaa wax la soo malmaluuqay, meel laga keenay soo daray lagu sameeyey saldhigiisa hore, kadibna lagu xeer looga dhigay shirkii mataqaanaa Kenya lagu qaban jiray 2004 Mbegati markii la sameeyey leegadii waxay dhigatay nidaam iyo qoraal ayay samaysatay. waxaa ka mid ahaa dumarka in la dooran karo oo ay madax noqon karaan, ayaguna wax dooran karaan. reer Yurubka ku sheegaya meesha baqbaq leh haweenkoodu markaas mana dooran, hataa in la doorto iska day ma dooran karo intooda badan. hadda maanta kuwa noocaas ah ayaa waxay kaaga dhigayaan haweenkii wax waligood xirxiraa oo gowracnaa oo geed hoostiilay oo baayo hoogay oo aan xuquuq lahayn ay kaaga dhigayaan. dad masaakiin oo waxba kala ogeyn ayaa naaw ku haya. federaalka noo dhalay la leeyahay, nooma dhalin federaal. annagoon xor ahayn ayaan qaadanay haweenku inay wax dooran karaan, lana dooran karo. waana tartameen gabdho. doorashadii ugu horeysay intaan ciidamadu qabsan gabdhaha tartamay oo xisbiyintay samaysteen ayay tartameen ay sameeyeen. waxa marka waxaan oo dhan waa waxna lagu wareerinaya, annaga lagu dilayo. marka waxaan leeyahay maxaa ka socda gaalkacyo waa la isku dilayaa. baalka in isku dilnaa loo keenay, wax kale looma keenin. war haddii ay jirto oo nidaam uu yahay system, waxaa la yiraahdaa sharciga hadduu kun qodob ka kooban yahay, hal ka mid ah haddaad jabiso kunkiiba waad jabisay. mudug waa la kala jabiyey. galmudug waxay ka samaysan tahay galgaduud iyo qayb ka mid ah mudug ayay ka samaysan tahay. maxay dhashay marka arrintaas? in lees dilo, lees laayo, leesku burburo, leesku baabao.
nimankii lahaa annagaa idiin soo samaynay annagaana ilaalinayna weli juuq ma ka maqashay arrintaas waa khalad in la kala gooyo gobolkaas ee waxay ahayd inay hal gobol isku noqdaan ma ka maqasho weligaa waa maya kama aadan maqal maxaa looga maqli waayo wixii ay rabeenaa ka bilowday sidii la doonayaa ka bilaabatay sidii baa socota waa lagu jabayaa waa lagu baaba'ayaa galmudug waxay ka samaysan tahay intaas yarta ah ayay ka samaysan tahay aniga marka nin yahow haddaad federaalkaas i weydiisay waxaan dhib iyo dhibaato iyo burbur aan ka ahayn uuna soo gaarsiiyey ama noo keenay ama aan ka helnay lama arko soomaaliya hadda wuxuu usii kala jebinayaa qabaa'il iyo reero iyo degaamo qabiil loo samaynayo ayuu usii kala jebinayaa qabiilkuna wuxuu ahaa midkii meesha na dhigay na dumiyey na bi'iyey oo meesha mataqaanaa nagu dabray kiibaa hadda waxaa loo samaynayaa sharciyad su-aasha ah soomaalidu ma ku habboon tahay federaalka ayaa ah mid siyaabo kala duwan ay haa uga jawaabayaan qaybo bulshada ka mid ah oo ay siyaasiyiintu ka mid yihiin balse rayul caamka bulshada soomaalidu ma ahan mid taageero u muujinaya nidaamka federaalka inkastoo aysan jirin ra'yi ururin sax ah oo la sameeyey waa kan cabdiraxmaan rooble ulayare oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaalida oo ka jawaabaya su-aasha ah federaalku ma ku habboon yahay Soomaaliya horta marka ugu horeysa nidaamka federaalka waa nidaam jira adduunkana wadamo badan ay ku dhaqmaan wadamo badan oo qaatayna ay ka taagan yihiin maaragtay ay dhibaato badan ku qabaan tusaale ahaan federaalka annaga sidaan u fahanna Soomaalida waa qaldannahay federaalna waxaa loo sameeyaa ama samaysta dad maaragtay ay duruufi keentay in nidaamkaasi la dhex dhigo tusaale ahaan waddanka Ethiopia oo kale waa qarumo ama ummado kala duwan oo meel ku wada nool nidaamka federaaliga uu ka shaqeyn karaa Ethiopia kan Nigeria kale uu ka shaqeyn karaa Kenya kale uu ka shaqeyn karaa laakiin Soomaaliya dad wada ah hal nidaam oo hal ummada in ma leeyahay koonfur galbeed iyo maaragtay banaadir inta xuduudooda taawado ciidamada la soo hordhigto wax shaqeynaya ma aha si qaldan waan u fahnay nidaamka federaalka Soomaaliya kuma haboono dhinaca kalena waa kuwan codadka qaar ka mid ah dadweynaha Muqdisho ku nool oo ay ka mid yihiin dhalinyarada jaamacadaha oo ah jiilka bari hogaamin doona siyaasadda dalka oo aragtidooda ka dhiimanaya in federaalku uu ku habboon yahay Soomaaliya iyo in kale magacay waa Xaashim Maxamed Axmed federalism Soomaaliya kuma habboona sababta waxay tahay Soomaaliya waa dal yar waa dad isku diina waa dad isku dhaqana waa dad wiil iyo seedi ah waa dad haddii alla ku roonyo aan kala duwan iyo midabyo kala duwan lahayn marka Soomaaliya federalism kuma fiicna in loo keenana maaha wadanka uu ku qurux badan yahay waxa weeye wadanka ballaaran oo isku diinahayn oo isku afahayn oo kala duwan oo kala culture-ka oo kala dhaqanka oo kala diimaha kaas weeye midka oo federalismku uu anfacaya laakiin anaga na anfacayo waa wax korna looga soo rido la rabo in dalka lagu baabi'iyo lagu dumiyo weeye magacayga waxa la yiraahdaa Madiino Madiina marka Soomaaliya ma ku habboon tahay federalism inay qaadato mise ma ku habboon kuma habboona waxaana shaqo ku leeyna duurarka laga keeno meelaha reer galbeedka laga keeno aniga federaal waxa la yiraahdaa dadka kala diina oo waxaan ku leeyahay kala afa oo isku luqadahayn oo waxaan ku leeyahay gaalo muslim wax daran oo diinta muslimka shaqo ku lahayn kala haysta marka anaga dadka diinta muslimka haystaan nahay dad isla wada dhashayaan nahay dad isdhalay oo abtii wiilkiisa nahay adeer iyo eeda isku ahaan nahay marka anaga federaal wax la yiraahdo ma soo gasho waa federaalna soo dhex gasho waxaan noo fiican marka in Soomaalidu ay Soomaali ay ahaato in la kala qaybin waxaan reer galbeedka wataan oo waxaan ku leeyahay qofba idan gaar doldankan ka leedahay waxaas anaga waxna anfacay wax Soomaali roomidna ma anigu Dr. Axmed Diire Jamaale ciyoon waxay la tahay Soomaaliya inay ku habboon tahay inay federaal qaadato sababtoo ah Soomaaliya waa dad dagaalay oo dhibaato ka dhacday sida isku aaminaanna waa adag tahay marka sida darteed inay qolo walba maamulkeeda ahaato oo sidaas federaalku dawlad dhexe oo ka dhaxaysa la helo way ku fiican tahay qabaanugu xilligan waayaha dambe ma garanayo laakiin hadda xilligan ayada ah saasa ku habboon Soomaaliya Abdulqaadir Ali Diiriya la yiraahdo Abdulqaadir waxa ka mid ah dad ku nool magaalada Muqdisho bal ka waran federalismka Soomaaliya inay qaadato ma ku habboon tahay mise ma ku habboona federalism Soomaaliya kuma habboona mana qaadan karto sababtu waxa weeye waa wiil iyo abtigi waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan xuduudna male
reer guuraa baan u badannahay 70% meeshii roobku ka da'an wada daaqnaa u wada guurnaa daddan gaar ah weeye dadka federalismka dadka ku khasbahaya xoolaha la kala soocay dadka lama kala sooco ma noqon karto Soomaaliya federalism magacaygu waa Umar Ahmed Sheekh Aadan kamid ah ardada jaamacadaha Muqdisho gaar ahaan department public administration su'aasha ay weydiiday haddii aan ka jawaabo oo ah Soomaaliya federaalku ma ku habboon yahay mise kuma habboona anigu waxa qabaa waa uu ku habboon yahay sababtuna waxay tahay federaal macnihiisa waxa waaye awoodda ay leedahay dawladda dhexe in la qaybiyo iyadoo la gaarsiinayo min gobol degmo tuulo ilaa xaafad si dadku degan goobahaas aan looga keenin dad meelo ka fogfog ka yimid ee ayagu ay loo siiyo fursad ah in ayagu ay soo doortaan dadka u matalaya dawladda u matalaya marka aniga commentiga aan ka dhiibanayo waxay tahay federaalku Soomaaliya waa uu ku habboon yahay laakiin waxa uu u baahan yahay waxay tahay madax qaada federaalka ayagoo u maraya si dawladnimo oo cadaalad ay ku jirto bismillaah magacayga waa Abshir Calaad oo ka tirsan ardayda magaalada Muqdisho wax ka barata fikirkayga haddaan ka dhiibto federaalka Soomaaliya ma u baahan tahay mise uma baahna ana aragti aan waxaan qabaa inaysan federaalka Soomaaliya u baahnayn sababtuna waxa weeye federaalka waxa loogu talagalay dad kala diimo ah kala dhaqan ah oo isfahamkooda loogu talagalay in la isku hayo laakiin anagu hal dadan nahay uma baahnin aan qabo ana aragtideeda federaalka bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Xuseen kamid ah ardada wax ka barata magaalada Muqdisho haddii aan u gudagalo su'aashaadii weydiisay oo aheeday federaalka Soomaaliya waqti xaadirkan ma ku habboon yahay mise kuma habboono ani ahaantayda waxaan qabaa Soomaaliya federaalka kuma habboono sababtoo ah Soomaaliya waa dal qura isku dad ah isku diin ah isku culture ah hase ahaatee federaalka Soomaaliya hadda inoola keenay ma ahan mid Soomaaliya munaasab ku ah maadaama aan saas u leeyahay waxyaabaha aan aragnay dhibkiisa waxa kamida maadaama maamul goboleedyada la dhisay in uu inoo siyaadiyay waxa loo yaqaan conflict oo in badan maamul goboleedyada xuduudo aan hore u jiri jirin ee hadda yaani bilaabeen maamul kastaba maamul kale uu diidan yahay inuu ku soo xadgudbo xuduudiisa waxaan aragnay sidoo kale maamul kasta inuu yaani isu taagay inuu yahay dawlad lamida dawladda federaalka ah marka ani ahaantayda waxaan qabaa inuusan ku habbooneen waqti xaadirkan federaalka wadanka Soomaaliya amaasanta magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo kamid ah ardayda Muqdisho haddaan su'aashaada u soo noqdo aan ka jawaabo waxay la tahay federaalka dalka Soomaaliya uu ku habboon yahay sababtay tahay dalka Soomaaliya waxaan ognahay inuu burburay uu yahay dal fawdo galay oo waqti dheer kala maqnaa marka sida ugu fudud ee lagu soo celin karo bulshadii kala tagtay waxay la tahay inuu yahay federaalkan oo ah base bulshadii ay ka soo dhismayso gobol walba burburku ku dhacana dib uu u soo kabanayo saas ay la tahay anaga hadda diinna kuma kala duwanin dhaqanna hadda dhaqankeena waa mid laakiin annaga waxa aan gooniga ugu yeelay waxay tahay is-aamin darro dalkeena Soomaaliya intiisa badan dadka waa is-aaminaadii ka luntay marka si is-aaminaadii loo soo celiyo waa federaalka in la qaato haddana waxa dareemaysaa haddii federaalkan golba uu federaalka tasdiiqray ama tijaabiyo in is-aaminaada si hoose ama si basically ah u soo dhismayso wax yar ay soo laabanayso waaka al-aakhir waxaan leeyahay federaalka dalka Soomaaliya aad iyo aad buu ugu habboon yahay waxa uuna ka talinayaa in dalka uu dib u dhismo oo uu la soo noqdo sumcaddii uu lahaa intaasna dhageystayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa qaybtii 7aad ee barnaamijka yaa fikiray federaalka Soomaaliya anigoo Maxamed Axmed ayaa idin la socodsiinayay tan iyo intaynu qaybta 8aad ee barnaamijkan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo tagtadayo
timaadada qabo waa tusaale wax ku taransada ha iska tuurina mastawaawaca kabar liidaan ku tasawna nisa taagiyo talawacan baan ku tasmaynaa hallow laba talo oo mataana si inoo roon noo tilmaano nagu taageer nasha weynaya waa lagu talintooyo